soo baxay in Soomaaliya ay u yeeratay safiirka Kenya ay ugu dirtay dalkiisa la tashi arinta ayada maxaa soo dedejiyay ama xilligan ku soo beegaad isleedahay way cadeeyeen waraysigii ay soo saareen ay ku leeyihiin maxay safiirka lagana waa la soo noqonay Kenya wada tashi baa dib ugu dirnay Kenya waxayna dhaheen arinta waxa sabab u faragelin qaawan oo soo jireen oo laga wantoobi waayay oo arkeen haddana in midnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya wax u dhimayso marka taasay ay u muujiyeen maxay tahay marka faragelinta soo cusboonaatay ee iminka keentay in safiirka dib loo celiyo wallahi arwad adfaray weydiiso la yaab ma arkan hadda arintan dhacday waxa la yaab ilaa ahaa maxay waqtiga dheer u qaadatay waxa Soomaaliya waxay iska ahayd goob ninkastoo iska faragelinay cid kastoo dhan Ethiopia markay Tigreeda meesha haystay si qaawan u faragelinaysay oo ka dhigtay kaanama gobol Ethiopia kamid ah imaaraadka si islamid bay oo dhaqanayeen oo qaybo kamid qarankii bay hadda ay leeyahay heshiis gooni baan la galeena sidii maartay Puntland iyo meel kale Kenya waxa weeyaan mucaaradka ka soo horjeedo nidaamka hadda ka dhisan xamar waa niman si joogto ah inta u imaanayo si joogto ah maaragtay dhaqdhaqaaq fara badan oo dhanka Kenya ka socdo oo xagga dawladda ay uga dhex muuqdaan waa qolo maaragtay moodaa ma ay tahay oo ay una eg tahay ayna tahay dhab ahaan in si joogto ah ay ogala tashanayaan wasiirka dambe iyo aytinka dambe oo Soomaaliya in maaragtay inta siyaabihii misal loo farmaroojisan lahaa misal loo caqabadeen lahaa hadda ay tahay in inta si joogto ah lagala tashado musharaxiintii baa inta joogtaa si mar kastaba maamul goboleedyada ka soo horjeeday baa inta joogaan mar kastaba marka madaxweyne ku-xigeenkii baa wuxuu yiri anagu waxaanu Kenya Soomaaliya xisaabtan la galeynaa ku saabsan waxyaabaha aan isku haysano markii uu farmaajo meesha ka tago dad la og yahay oo khabiiriin oo dawladda la shaqeeyaan oo wasaaradda arrimaha dibadda la shaqeeyaan oo mid kamid ah xaaskiisa ay ahayd wasiiradda arrimaha dibadda ayaa mar kastaba ku hadlaan oo dhahan post farmaajo markuu farmaajo meesha ka tago oo nin waliba reebel oo Soomaaliya meesha uu ku fariisto yaanu anaga Soomaaliya wax la qabsanaynaa marka waxaad moodaa ninkii Cabdirashiid Janaan aha oo waqtigan inta la soo galiyay oo dhanka Kenya laga soo galiyay dagaal ku qaaday balad xaawil ciidamada qaranka Soomaaliya xagga joogo wixii wax yar ma ah waa wax aan aad fara badan marka way wax iska cad weeyaan dawladda Soomaaliya waxyaabaha ay ka hadashay waxa kamid ah in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ay Kenya ku cadaadinayso in uu doorashada caqaday adeehaas maxaa loo cuskaday way iska caddahay hadii waxa weeyaan doorashadii waa laga wada hadlay doorashadii markii hore wuxuu dawladda ay federaalka ay rabtay in lagu sameeyo one man one vote oo universal suffrage Soomaaliya oo dhan bay cod ka hirdato waa lagu diiday dadba ma rabnaa baa leeyahay tira la isku soo qaaday markii dambe 301 lagu heshiiyay haddana markii lagu heshiinayay way qaadaceen asagii iyo kii Puntland fursad baa haddana la siiyay waa la soo dhaweeyay waxa la yiraahdaa xamar imaada 101 bay ku adkaysteen haddana waxay raadinayaan asbaab ay dhahaan 101kii waxa u soo baxday kulley iyaga xigmadooda iyo aqligooda in maaragtay say rabeen haddana ay heleen marka aan nidaam raadinno maalinba geed aan fooda saarno maalinba aan culays cusub aan beerno maalinba wadan jiraankii aan la soo tashanno oo dhahna si uu ku baxa ninkii meesha joogay oo show iyaga ay u arkaan hadda inay adag tahay sida looga bariyo maxaa shacabka Soomaaliyeed baad moodaysaa inay go'aamadeeda gaareen ilaa maalin dhaweyta la yiri dagaal ma ka dhici kara xamar laakiin shacabka Soomaaliyeed oo xamar joogay ma dhacayo dagaal mudahaaradii markii dawladda lagu taageeray la soo saaray walakin faragelinta farada badan oo anaga inoo muuqato oo ay kamid tahay wafdi Kenyaan oo madax ah oo baarlamaanka ka socda Kenya iyo memberin baarlamaanka wixii oo la xiray hawada Soomaaliya intay ka duuleen Kenya kismaayo intay ka degeen ay maaragtay ay ku caayeen dawladdii markii federaalka ahayd wayna ka soo noqdeen haddana iyagoo wax laga sii daba raacay aan jirin marka la yaabka ma aha in ay Soomaaliya ay ku dagaalamayso qarannimadeeda iyo territorial integrity-geeda
muqadisnimada maartay dhulka Soomaali oo adduunka caalamka loo og yahay laakiin waxa weeyaan maxay waqtiga inta la eg u qaadatay inay arintan ay ka dhidiyaan oo ay dhahan ma soconayso